tijaarmadkaas haddii xaggaas u joogay waxaa ahaa another tijaarmad oo laakiin bixinayay luqadda talyaaniga. Waxaan ku bixinayay tiktok meeshaas waxaa iga xirnayd asxaab badan oo aad iyo aad u jeclaa oo ilaa haddeertaan jecel in ay bartaan ku hadalka luqadda talyaaniga. aad iyo aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena Som Gold Office waa idin islaamay meel walbo adduunka joogtaan. waxaa idin leeyahay galab wanaagsan. intaas kadib asxaabay, maanta waxaa rabaa inaan idinla wadaago mar dhow inaan bilaabi rabo new course ama koorso cusub taasoo lagu baranayo ku hadalka luqadda talyaaniga. barnaamijkanna ma ahan barnaamij hadda bilaabayo, waxaa ku bixi jiray dhankaas iyo tiktok. macquul tiktok inaad ku aragteen macalin lagu magacaabo tiijar mahad, laakiin tiijar mahad wuxuu ku ekaa dhankaas iyo ku hadalka luqadda ingiliishka. anigana waxaa ahaa another tiijar mahad kaleeto oo laakiin bixinayay ku hadalka luqadda talyaaniga. luqadda talyaaniga way kala baxdaa dhowr qeybooda leedahay, hadday ahaa lahayd barashadiisa iyo qeybihiisa ama leveladiisa. level wuxuu leeyahay A1 ama A1 oo kale, A2, B1, B2, C1, C2 sidaasoo kala baxaa. sidoo kaleeto waxaa jiro grammar uu leeyahay, wuxuu leeyahay tendency uu leeyahay iyo sheekooyin iyo casharaan caadi ah. marka aniga waxaa bixinayay sheekooyin oo ah luqadda talyaaniga, weliba levelkooda level 2 ama A2 level. marka tiijarmadkaas haddii xaggaas u joogay waxaa ahaa another tiijarmad oo laakiin bixinayay luqadda talyaaniga. waxaan ku bixinayay tiktok meeshaas waxaa iga xirnayd asxaab badan oo aad iyo aad u jeclaa oo ilaa haddeertaan jecel in ay bartaan ku hadalka luqadda talyaaniga, kuwa joogo dalka gudihiisa iyo kuwa maqan oo jira dalka dibadiisa, gaar ahaan wadamada looga hadlo afka talyaaniga. sidaas darteed bilooyinka u dambeeyey ama maalin u dambeeyey waxaa soo aaday dhankan iyo youtube-ka. marka dhinacaas tiktok-ga waxaa iga fuulay culays oo casharaan halkaas ka bixi jiray xoogaa hakada iga soo galay. marka asxaab badan ay la soo xiriirtay dhanka whatsapp-ka iyo asxaab si face to face asku naqaano ayagoo weydiinayay warhayi aawa casharaantii xagee ka baxeen sheekooyinka talyaaniga ahaa way kugu xirneen kan baayaa sameyn waa idin soo socdaa saawdahayay xoogaa weli culayska way kasoo fuula. marka mostly asxaabta inta aad iyo aad ku daneynayday waxay ugu yimaadeen youtube-ka dhanka commentiga. whatsapp-ka kulli waxay leeyihiin koorsada dib noogu soo celi mobilaal. sidaas darteed waxaa go'aansaday koorsadan in aan mar labaad dib u soo celiyo. marka ma ahan wax haddeertaan aan bilaabayo. dhanka tiktok-ga ku bixi jiray sheekooyin aad iyo aad u qurux badan, soo jiidasho leh, kuwo ka sheekeynaya waxyaabo baasti ah, kuwo ka sheekeynaya waxyaabo oo present continuous ah, kuwo ka sheekeynaya waxyaabo future ah. future-ka asaga laba kala ah, future fog iyo future dhow, futuro semplice oo kale ama futuro anterior. futuro semplice iyo futuro anterior macnaha laba future, mid dhow iyo mid fog. sidaas darteed waxaa halkan ka samayn doonaa new playlist oo lagu baranayo ku hadalka luqadda talyaaniga, weliba level A2. asxaab badan waxay isweydiinayaan hayada oo principiante ama level A1 la sameynin way ninkan ama kabtamahad uu bilaabaya level A2. dabcan leveladaas kaleeto ayagana waa muhiim, waa sida alfabeetka oo kaleeto, lambarada oo kale iyo xarfaha oo terminology-ga, kuwaasna waa noqon doonaa. laakiin hadda focuska waxaa saaraynaa level A2. asaga naftarkiisa aad iyo aad uma dhib badno, wuu iska fudud yahay, waa sheekooyin. marka waxaan ku bixinayay dhinaca tiktok-ga. dhinacaas tiktok-ga waxaa isku daya inaan kasoo wareegsado maadaama haddeertaan ku sugannahay gudaha youtube. waxaa samaysnaynaa new playlist oo cashiraantaas aan kugu soo gudbinayo si askan recording ahaana weliba idinkugu samayn doonaa. course right now waa taagan yahay wax sabuurada stuudiyaha igama muuqato, laakiin waxaa rajeynaya kamison ama qaab kaleeto oo adinka u fahmi kartaan hadba qaabka markaas adinka aad codsataan codkiina meesha u bato amar walba diyaar idinku lahay. marka qaabkaas waa bixin doonaa sheekooyinkaas. waxaa idin leeyahay qof alaala qofka daneynayo in oo barto ku hadalka luqadda talyaaniga qeybihiisa kala duwan, level A2, B1, B2, C1, C2 oo ah levelka ugu dambeeyay. macnaha qof alaala qofka daneynayo soo dhowow
gacmo furan kusoo dhawow, waxaa ku leeyahay benvenuto maaragtay. Marka sidoo kaleeto waxaa ku leeyahay haddii ay jiraan asxaab kaleeto oo danaynayso inay bartaan luqadda talyaaniga, muuqaalkan waa muuqaalkoodii, u sheergaray ama la wadaag. Sidoo kaleeto haddii ay jiraan asxaab oo jirto dalka dibadiisa gaar ahaan Itaaliya oon aqoonin ku hadalka luqadda talyaaniga ayaga muhiim u yahay hala gaarsiiyo. Marka waxaan rajeynayaa inaad si fiican ama si wanaagsan uga faa'iidaysan doontaan sheekooyinkan talyaaniga. Marka qaybaha kaleetona dabcan waa muhiim, qaybta grammarka, tensyada iyo terminolojiyada. Terminolojiya waxaa ka baxsan karnaa xitaa sheekooyinka hadda aan soo dhigayo kale, sheeko walba waxay leedahay qayb oo terminology ah. Terminolojiyadaas ayaa waxaa ka baxsan doonaa si gaar ah u baxsan doonaa, macnaha ayadaa waxaa u qaadan doonaa eray ahaan. Marka soo dhawaada mar kale, waxaa ku leeyahay muuqaalkan weli haddii aad la garin waxaa kaa codsanaya inaad la garidid, sidoo kaleetana asxaabtaada hala wadaagtid. Janalka haddii aad weli kusoo biirin oo qof cusub aad tahay, fadlan nagu soo biir oo janalka subscribe gareey. Marka asxaabay intaas ayaan la wadaagayay muuqaalkan maanta, halkaas ayuu egyahay. Waxaan noo balanaa view playlist oo lagu baranayo luqadda talyaaniga. Qof alla qofka danaynayo muuqaalkan waa muuqaalkaagii. Xiisadaha soo socda ama muuqaalada soo socda, qaybta oo hadlayno badda maahane qayb kaleeto new playlist ah oo sameynaya barnaamijka luqadda talyaaniga ah. Weliba saa idin sheegay levelka A2 oo ah sheekooyinka. Halkaas ayaa idin soo dhigi doonaa, halkaas kala socda kana daawada mar walbana muuqaalka hala la gareeyo si uu gaaro qof walba oo jecel inuu barto luqadda talyaaniga. Waxaan idin leeyahay see you again.